weli waxaynu ku jirnaa wararka la xiriira horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha Puntland. madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka qayb galay dhismaha gegida diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo oo noqonaya garoonkii saddexaad oo casri ah oo yeelato Puntland muddo 3 sano gudahooda. wariyahayaga Maxamed Cabdicasiis Rasaas oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa warbixintan inoo soo diray. madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo waxa ku soo dhaweeyay bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo horkacaya xubno golo wasiiro iyo baarlamaanka Puntland iyo sidoo kale maamulka gobolka Mudug iyo kan degmada Gaalkacyo. soo dhaweynta kadib madaxweynaha ayaa howlka shirarka ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo waxa uu ka daafuray dhismaha garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Gaalkacyo oo ay ka soo qayb galeen bulshada qeybaheeda kala duwan xafladaasi daafurka ah. wasiirka wasaaradda duulista hawada ee garoomada dowladda Puntland ayaa sheegay in guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed uu garoonkani faa'iido u yahay isla markaasina ay ka faa'iideysan doonaan gaar ahaan shacabka Puntland kuwa ku sii dhaqan magaalada Gaalkacyo. maanta waxay noo tahay maalin weyn dhammaanteen haddaynu reer Gaalkacyo haddaynu reer Puntland ama aynu Soomaaliya oo dhan waayo waxaynu dhisaynaa garoon caalami oo Soomaaliya yeelato Puntland yeelato oo Gaalkacyo yeelato. garoonkan wuxuu faa'iido u yeelan doonaa Soomaaliya oo dhan maaha Gaalkacyo kaliya maaha Puntland kaliya waayo meesha uu ku yaal waa bartamihii Soomaaliya waa xuduntii Soomaaliya inta gobol oo ku hareeraysan iyo inta u dhow oo dhan ilaa iyo kililka ilaa Soomaaliya inta kale ayuu u noqon doonaa garoon caalami ah oo ay ka soo degaan dadku isticmaalaan. Mr. Anani oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda CCECC ee dhisaysa dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo ayaa shacabka reer Puntland gaar ahaan magaalada Gaalkacyo waxa uu ka codsaday inay la shaqeeyaan shaqaalaha ku guda jira hawsha fulinta dhismaha garoonkani isagoo dhinaca kalena ka sheekeeyay taariikhda shirkadani iyo sidoo kale qaabka ay Afrika uga shaqeyso. Our company CCECC, China Civil Engineering Construction Corporation, we are rooted in Africa. In 1960s, 70s. We built Tazara, Tanzania-Zambia Railway. shirkaddeena CCECC waxay ka aasaasmatay Afrika 1960kii mashruucii ugu horeysay ee fulisay wuxuu ahaa Tanzania-Zambia Railway. anagu waxaan nahay shirkad Afrika wax badan ka qabtay ilaa 60kii ugu dambeysay mashaariicdii aan ka qabanay Ethiopia, Djibouti oo ay ka mid yihiin tareenka dekadda Djibouti economic zones oo dirdhaba iyo hawaasa laga sameeyay iyo taawada ogsoontihiin oo aeroportka Boosaaso aan bilownay 2015kii ana dhameeyna 2016kii ahead of schedule and with very good quality. madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu xusay in muhiimad gaar ah ay dowladdiisu siinayso dhamaystirka kaabayaasha dhaqaalaha iyo kor u qaadistooda si loo helo maalgashi caalami ah oo Puntland kheyraadkeeda ay uga faa'iideysato. waxa la rabaa marka waxa weeye Alan hadda wuxuu yiri waxaan rabnaa aeroportkani muhiimadda uu leeyahay oo ah ganacsiga. hadda waxaanu soo dhagax dhignay wadadii Eyl iyo Garowe. muhiimadda kaabayaasha dhaqaalaha isku xirkoodu wax walba waa isku xiran yihiin wadada dekada iyo aeroportku inta waa isku xiran yihiin. intana waxay muhiim u tahay sida uu sheegay in la helo wadanku inuu furfurmo wadanku inuu kaabayaal dhaqaale helo wadanku inuu maalgashi helo. anagu kheyraad dabiici oo badan baan leenahay kheyraad badan baa dhulkeena ku jira laakiin laba waxba waa la'anahay dhaqaalihii aan ku soo saar lahayna ma haysano aqoontii aan ku soo saar lahayna ma haysano. waxaan intaan u baahnay marka waxa weeye oo uu ka hadlayay dabcan markii aynu kaabayaasha dhaqaalaha dhisano waxaanu helaynaa maalgashi dabadeed oo iyagu uga horeeyaan oo ah inay naga taageeraan sidii kheyraadka iyo kalluunka iyaga ah. waa hirgelinta ballanqaadkii saddexaad ee madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ku aadanaa in 3 sano gudahooda yeelato Puntland 3 garoon caalami ah kuwaas oo la jaanqaadaya garoomada caalamka ee horumaray. halkani waa meesha laga dhagax dhigay isla markaasina shaqadii si toos ah maanta uga bilaabantay oo garoonka caalamiga ah ee magaalada Gaalkacyo ay yeelan doonto. shirkadda CCECC oo horey u soo dhistay garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso ayaa mashruucan hirgelintiisa qayb laxaad ka qaadanaysa. waxaa meesha taagan guud ahaanba qalabkii lagu dhisi lahaa garoonka
muddada uu soconayo. Madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ku ammaanay shirkadda CCECC in kalsooni buuxdana ka muujiyey in muddada loogu talagalay loo qorsheeyey ay kusoo gabagabayn doonto dhismaha garoonkan caalamiga. waa garoonkii saddexaad oo caalamiya oo Puntland ay yeelanayso muddo 3 sano gudahooda. Madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa 10 Oktoobar 2014 magaalada London ka ballan qaaday in 3 sano gudahood Puntland ay yeelan doonto 3 garoon oo caalamiya. Horey ayaa xariga waxaa looga jaray dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso, waxaa gabagabo ku dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe. Maantana shaqadiisii waxay si toos ah u bilaabantay dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo. Madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu sheegay in uusan cidna ku hadleen doonin hirgelinta mashruucani ee uu isagu daba joogi doono, isla markaasina ay guul u tahay ummadda Soomaaliyeed inay u dhawowdo riyadii uu horey ugu riyoonayay markii uu ballan qaadayay ee ku aadanayd hirgelinta 3 garoon. xasuustaa bishii Oktoobar aniga oo jooga London ayaa waxaan ku iri dadka reer Puntland 1 sano 1 airport maan helaynaa, 2 sano 2 airport, 3 sano 3 airport. marka ilaahay baan uga xamdinaqaynaa runtii in uu waxa aan niyadda naga jiro wanaaga inuu noo hirgeliyay. runtii aad baa ilaahay uga mahadnaqaynaa. meel fiican bay maanta Puntland maraysaa insha Allah. waxaan ila tahay meel maanta Soomaaliya 3 airport international caalami ee ka jirta Puntland ma jirtaan u maraynaya insha Allah. Maxamed Rasaas, Puntland TV, Gaalkacyo.